waa hagaag daawadayaal idil ahaantiin meel walba daafaha caalamka iyo guud ahaan wadanka baa naga daawanaysaan waxaan idin leenahay maalintu haydii wanaagsanaato soo dhawaada waa mar labaad iyo mar saddexaad warbixinayna joogtada ah ee aan kula wadaag jiray toddobaad kasta ciyaaraha dalka iyo kuwa caalamkuba halka ay marayaan waxaa maalinimada Britolaha dhici doonta Hargeysa Stadium ciyaar taariikhi ah waa laba kooxood oo facweyn waa ciidanka asluubta iyo sidoo kale xidigaha cirka oo ka dhawaad muddo dhowr iyo 10 sano kamid ah heerka koobaad labada kooxood Britole ciyaartoodu sida lagu tilmaamayo waa geeri iyo dhimasho sidoo kale kooxahaasi mid kamid ah ayaa Britole heerka labaad tagi doonta haddaba intaynaanu gudbin labada kooxood ciidanka asluubtu mar walba iyagu waxa looga baahan yahay barbardhac iyo badis intaba iyagu waxay kamid simid ahaanayaan heerka koobaad sidoo kale kooxda duulista badis oo kaliya ayaa laga rabaa maalinta Jimcaha waxa iyaduna dhici doonta ciyaar standard keedu aad u sareeyo ciyaartaas oo lagu soo gabagabayn doono horyaalkii heerka koobaad waxa ku wada ciyaari doona Hargeysa Stadium laba kooxood oo aad u soo ficiltamay horyaalka kooxda dawladda hoose oo iyadoo haysay seasonkii hore horyaalka hogaaminaysay balse iminka ku jirta kaalinta labaad iyo kooxda Goodiro ku jirtay kaalinta labaad iminkana horyaalka kooxda caasimadda Hargeysa oo iyadu hogaanka saasi ku haysa kuna guuleysatay horyaalka haddaba kulankaasi waxa uu ka dhigan yahay waa taariikhi kooxahan facweyn leh ayaa in badan soo ficiltamayay haddaba yaa badin doona kulankaasi waxa iyaduna xusid mudan waxa kamid ah laba ciyaartooy oo heerka koobaad ah waa Aamin Xirsi iyo sidoo kale Khadiir Mustafa iyaga oo challenge ugu badan dhex yaalo waxay kala leeyihiin 20 gool oo Khadiir Mustafa ku hogaaminayo gool dhalinta iyo Aamin oo la 15 gool haddaba suurtagal ma tahay Aamin Xirsi inuu 6 gool dhaliyo ama 5 gool kulankani waa iyaduna xusid mudan kulanka Jimcaha dhacaya halkaasi oo lagu dubaaldegi doono taageerayaasha ugu badnaa ay ka soo qayb gali doonaan haddaba waxa xusid mudan oo iyaduna xiiso leh kooxda horumarinta wasaaradda biyaha ku ciyaaraysay oo iyadu tagtay heerka labaad haddaba yaa soo labayn doona laba kooxood baa heerka koobaad ka mid noqday oo in badan ka soo ciyaarayay heerka labaad waxa weeye wasaaradda warfaafinta oo iyadu in badan ka soo mid ahayd heerka labaad waqti cadceedana ay soo ciyaarayeen dhalinyaradaasi maanta chance waxay heleen ciyaartooy in badan ay ku dayanayeen oo role model oo ah inay heerka koobaad kala mid noqdaan haddaba waxa xusid mudan heerka saddexaad waxa ka soo dalacay laba kooxood oo ah maalgashiga iyo sidoo kale Hargeysa City oo iyaguna yimi heerka labaad ka mid noqday haddaba horyaalkan ayaa noqonaya horyaalkii ugu horeeyay noociisa laga hirgeliyay guud ahaan Soomaaliland caasimadda ayuu xiiso gooniye u yeelay iyadoo in badan indhaha caalamka lagu soo wadahayay guud ahaan Soomaalida haddaba xiriirka kubadda cagta Soomaaliland waxa uu buuxsamay muddo 9 bilood 9 bilood doorashadoodii ka bacdi waxa ay fooda saareen isla markaaba qorshayaal aad u kala duwanaa iyadoo iminka horyaaladoodii ay harsan yihiin 3 gobol oo waaweyn oo ah Awdal Sanaag iyo Sol championki oo iyadana la xadiday xilliga uu furmayo oo bisha 12aad waxa ka qayb galaya guuleystayaal 3 kooxood oo ka tagay Hargeysa oo ah kooxda ku guuleystay xiriirka koobka xiriirka iyo sidoo kale labada kooxood ee kaalmaha koobaad iyo labaad ka kala galaya haddaba gobolada kale iyaga mid baa ka imanaya horyaaladii soo guuleystay berbera ayaa la isugu iman doona haddaba daawade waxa xiiso gooniye iyaduna leh maalinta weekend fooday ugu soo haya ee soo socda iyadana ay dhici doonto xafladii weyneed ee lagu abaalmarinayay saddexdii heer ee kala duwanaa heerarkaasi abaalmarinaha lagu guuleysanayo waa goolhayii ugu wanaagsanaa daaficii ugu wanaagsanaa dhaxdii ugu wanaagsanayd iyo macalinkii ugu wanaagsanaa sidoo kale waxa la abaalmarinaya gooldhaliyii ugu wanaagsanaa kuma ayuu noqon doonaa best player ciyaaryahankii sanadka oo iyadana saddexdii heer kala duwanba la abaalmarin doono waa markii koobaad ee kharash inta dhan lagu bixinayo ciyaartoy kubadda cagta ciyaara iyadoo ay markana noqonayso xafladii ugu horeysay markii ugu horeysay ee la bixiyo best player ama ciyaaryahankii sanadka muddo ku dhawaad 30 sano oo Soomaaliland ay jirtay haddaba daawade waxa xiiso gooniye mudan yaa noqon doona ciyaartooygii sanadka yaa noqon doona waxa furmaya horyaaladii kale iyo sidoo kale dhammaan ciyaarihii harsanaa goboladii harsanaa waxa sidoo kale Lionel Messi ayaa xalay toole guul muhiim ah ka gaadhay dhigooda ama kooxda PSG aan idhaahde isagoo goolkiisii ugu horeeyay taariikhiyana xalay toole u saxaxay kooxda PSG imaanshiyihiisii Paris in badan uu raadinayay horyaalka uu ciyaarayay balse xalay ay u suurta gashay inuu gool indhaha caalamka soo jiitay oo dhaliyay fariinteeda ugu dambaysa haddii ay soo gaadhayso Hargeysa Stadium sawir kale taariikhiya ma laga qaadi doonaa Hargeysa Stadium isugu iman doonaan taageerayaasha ugu badnaa kulanka Jimcaha oo ku dhigan kulan taariikhiya
8 bilood oo joogta bay dad taageerayaal kala duwan u imanayeen wiil kasta haddaba taageerayaashu ku badnaa ma ka soo xadiri doonaan Hargeysa Stadium dadka bulshada daawanaysa ciyaartaasi aad u xiiso gelin doonta maadaama labadan kooxood ahaayeen labada kooxood ee aad ugu xifaaltamay horyaalka iyagoo imika hoggaanka kala fogeystay goodirna ay tahay horyaalka ama ku guuleystay heerka koobaad ciyaartan yaa guuleysan doona in badan indhaha caalamka lagu hayo imise taageere ayaa ka soo qayb gali doona ciyaartaasi oo iman doona haddii aad daawanayso hoos baad nagula wadaagi doontaa aad baad u mahadsantahay